maanta waxaynu ka hadlaynaa harimacadka buuraha, shalayna waxaynu ka hadlaynaa harimacadka biyaha ku nool ee kalluunka la soo baxaa. hadda kuwanna waa riyaha buuraha ku nool barafleyda ah. waxa uu iminka soo qaadayaa harimacadku oo u yar la soo jiraa mid ka mid a riyaha. wuxuu ku jiraa nolol maalmeed si caadiga ah, taargetkiisuna waa kaa. wuxuu iyanu soo jiraba cagtiisa ayaa dhagax yar ku dhacday, kadib sanqadhil ayaa fashilisay. hadda way dareen qaateen, waana yaaceen. hadda waa la isbacsanaya, waa la is-eryeenayaa. wuxuu taargetka inta badan saaraan kuwa yaryar waa ka baydhaafin waaweyn, waayo ta weyn ma qaadi karo ama ka orgiga weyn ma qaban karo oo ku dhib. hadda wuxuu in yaru la jiraa inuu qabto tii ugu yarada gaarka ula baxay. waa haleelay, waa la sambaaxdii. sambaaxad ayuu kaga soo tuuray buurta dheer, weliba iyada ayuu isku wasiisiin. sidaasaa bay ku dhimanaysaa. isagu iminka waa dili. hadda waa jiidayaa, muduguu taagan yahay. waxa uu u jiidanayaa dhinacii dhalihiisu yaadheen. maanta oo ay tahay maalin aad u qabow, barafku la daadanayo, wuxuu damaanad qaaday inuu helay nafaqadiisii, isagoo gacanta ku soo dhigay neef shinish oo 12 kiilooya. maanta isaga iyo carruurtiisaba ku filan. haddii aad ka heshay muuqaalkan, fadlan falowda iyo sheerta igu camira. haddii aad hore noola joogteena, waad ku mahadsan tahay daawashadiinna.